kulanti habboon daawadayaal halka aad nagala socotaan waa warbaahintii TS Media barnaamijkan waxaynu ku soo qaadan doonaa hogaamiyihii jabhadda canfarta oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Kadami warninka Shaarwaale halka idinka muuqda waxa jirta inuu ballan ku qaaday Ismaaciil Cumar Geelle inuu qool kaga soo saari doono guriga uu ka degan yahay magaalada Djibouti sidoo kale waxa jirta 3 casho ka hor in qalalaase weyn ka dhacay magaalada Djibouti oo wali alaankaana dabkiisi baxayo isna muuqaal ahaan baan idinku tusaya waxa intaaba ka sii horeysay Ismaaciil Cumar Geelle in uu weerar qaawan ku qaaday dhinaca canfarta Itoobiya degta kala gudbay xadka Itoobiya iyo Djibouti u dhaxeeya isagoo oo ku magacaabay weerarka in lagu raadinayo jabhadii Furuud wixii eeriyada ka soo dhawaaday waayahay waxa aynu barnaamijkan ku soo qaadan doonaa oo kale Somaliland Ismaaciil Cumar Geelle si toos ah in uu shalay toole ama maalintii la soo dhaafay ee 16 bisha xadgudub weyn sameeyay xadgudubkaas oo ahaa diyaarad soo gashay xadka Somaliland oo nooca Air Force-ka sidoo kale waxa jirta jabhad uu soo hubeeyay oo soo weeraray saldhig rug boolis oo ku taala tuulada Tukhsh loo yaqaan barnaamijkan waxa kale oo aynu ku soo qaadan doonaa ciidamadan qaranka Somaliland cutubyo ka tirsan oo tababarka loogu soo xidhay magaalada Caynaba halkaas oo ay ka qayb galeen taliyaha ciidanka qaranka taliya Nimcaan Yuusuf Gaaxnu iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyana waa daawan doonaa barnaamijka qodobada ay kuwa kale oo ku soo qaadan doonaa idinkuna share gareeya aragtidiinana dhinaca commentiga ayaynu isugu iman doonaa waayahay haddii aynu ku horeyno hogaamiyaha jabhadda Furuud ee canfarta Maxamed Kadami markiliyaata ayuu shalay toole gudka ka soo baxay qodobada goob fagaara ama muuqaalo goob fagaara lagaga duubay waxa ku jirtay Ismaaciil Cumar Geelle in uu godka uu ku jiro ugu tagi doono isaga iyo taageerayaasha shacabka ee uu wato iyo jabhadiisu waxa kale oo halka ku soo qaatay Somaliland in ay dawlad buuxda tahay waxa halka kaaga soo dhaxbaxday Somaliland iyo jabhadaas inay xiriir gacan saar yeesheen waxa jirtay in muuqaalka ku daawanayna hadallo uu halka ka jeediyay jabhadda canfartuna waa jabhad muslima marka hore waxa loo yaqaan canfarta kulli inta badan inay gaala tahay balse laakiin nimankan waa niman muslima bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam ahinka saaku asolutu nikadage xilaabeena intiyaari kinku Dr. Maxamed Kadami arxku saaku oo arxibala akuf سكتهتن معناه هو كتربيان وقب عسى عدينه يا حاجيدك لا يروح مرحبا منا لا يروح نلي يبركيني نكفرهم بانمي تساكو تهب لا يروح بانا أنا فدين سبينا يتوه بلكا يعني تكبري تهب كوستان فدين تهب دبوك كاو قبوتي هذهني يعني بطل هذا الشيء يعني اللي بيا كان النهاية تسيريني حتى إثيوبيا طاريني تكمي قسم هنا وي بكرر عشتة تنبرلو سلام باهيني سلام بقول روكسانا فك كادو بيرا ينساق Ismaaciil Cumar Geelle waa loo yaabaa horta gudkiisa biyo ugu galeen waxa laakiin taaba ku horeeyay 3 casho ka hor qalalaase ka dhacay Djibouti gudaheeda oo arrimo qarsoon ahaa sababtu tahay internet ma laha Djibouti waxaynu ku daawanaynaa halkan ay la daawo هاك عسكري صد توكاناي براني سلام الوله اسيك عف اسلام اسيك حسبرك عسكر ودي عفرق باطل sida halkan ka arkaysa jabhadda canfarta horta way kacda waxa kale oo raacay shacabkii magaalada Djibouti deganaa oo canfar iyo kuwa kale leh waxa ka dhacay qalalaase bilaabmay 14 bisha ilaa maantana socda waxa jira boqolaal lagu xirxiray arrimaha kacdoonka ee dhinaca canfarta waxa kale oo jira kuwo magacaysa loo soo raacay oo iyaga laftooda ku xirxiran Djibouti waxay marka ka dambaysa ka sii daraysa kalsoonida laga qabo xukuumadda Ismaaciil Cumar Geelle waxa jirta majara habaabin iyo mijaxaabin kale oo uu doonayo dhinaca Somaliland inuu duulaan ku soo qaado taas waxa laakiin kaga awood batay
siyaasadda dhinaca Somaliland oo si diblomaasiyadeed iyadu uga hortagtay waxaa jira xadgudubyo badan oo dhinaca xuduudaha Somaliland uu ka sameeyay Ismaaciil Cumar Geelle waxaa jirta shabhadda furuud ee canfartu leedahay in dhawaan Somaliland xiriir rasmi ay wada yeelan doonaan taasoo aanay kaligeed ahayn ee shabhad kale oo iyana dhinaca Ciise ah ay iman doonto xuduudaha Somaliland markaste waxaa la dhowrayaa baabul mandab ilaa gacanka cadmeed in dhinaca nabadgelyo ahaan la dhowro sababtu tahay dhinaca cadanba ay ka jiraan dagaalo ba'an waxaa jirta haddii maanta Djibouti iyo Somaliland iyo meelahan agagaarkan dagaal ka dhaco in ay kala xirmayo adduunka intiisa badan markaste waxaa dhinaca ammaanka loo raacayaa sababo la xiriira badda iyo isu socodka gaadiidka badda waxaa haddaba jirta jabhadda canfarta marka aynu ka nimaadno Somaliland talaabo noocay ay qaaday diyaaradii xadgudubka soo sameysay ee dhinaca xuduudda Somaliland ka soo gashay hawada Djibouti taasoo la sheegay in Djibouti ay diyaaradda nooceeduna ay ahayd Air Force nooca loo yaqaan oo diyaarad military ah waxa kale oo jirtay rug ciidan oo magaalada tuulada Tuqshi ahayd in jabhado Ismaaciil Cumar Geelle xuduudaha ka soo talaabiyay ay soo weerareen weerarkaas oo ay ku guuldareysteen ciidankii halka joogayna difaac ay ka galeen oo iska caabiyeen waayahay ciidanka la soo weeraray sababaha lagu soo weeraray waxa ugu badnaa dad qalalaasihii ugu dambeeyay waqtiyadii kacdoonadu ka socdeen gobolka Saylac gobolka Salal iyo magaaladiisa Saylac dad arrimaha iyo dambiye noocaas u xirxidhnaa oo Somaliland ka soo jeeday ayaga oo bartilmaameed ka dhiganaya ayay soo weerareen saldhiggii ciidanku haystay kuwaasoo ay doonayeen inay maxaabiista halka ku jirta si nabadgelyo ula baxaan taas waxa ka diiday ama awood kale harjigay ciidanka qaranka Somaliland halkan waa uga mahad celinaynaa sida ay isaga difaaceen cadawga xuduudaha ka soo talaabaya iyo dhinaca Djibouti waxa ay noqonaysaa ka hortagga kiniinka ka hortagga ee uu doonayo in uu ku dambabaso arrimaha diblomaasiyadeed ee Djibouti ee uu sida tooska u xalaashaday boqortooyada ka dhigay taasoo uu doonayo indhaha shacabka inuu iskaga jeediyo siyaasiyiintana indhahooda uu ka qariyo Djibouti iyo xogaha ay ku saabsan tahay ee dhinaca muwaadinimada waayahay haddaba ciidankii qaranka Somaliland cutubyo ka tirsan ayaa maanta waxa loogu soo xiray tababarka dugsi Caynaba ku yaala ciidankaasoo aan ahayn kii dugsiyada dhamaantiiba ku jiray ee kii dugsiga Caynaba iyo waxoogaa qowrlugud laga qaaday ahaa ciidankaasi waxa loo soo xiray koorsooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin ciidanka gantaalaha ciidanka tiknikada ciidanka infantry-ga ciidanka miinooyinka iyo ciidanka kamaan dawsta ciidankaasi tababarada kala duwan ee uu qabo aan intaa ku soo eekayn oo ay ku jiraan kuwii caafimaadka oo nin waliba tababarkiisa khibrad hadeer u leeyahay waxa si buuxda loogu soo xiray maanta tababarkii ay muddada 2 sano ku dhow la soo jiifeen halkaasoo maanta darajadii ciidannimo qaar ka mid ah lagu siin karo haddaba ciidanka kulay dad badan ayaa waxay ku cabsi gelinayaan qoladan aynu diriska nahay iyo halka Rabi Yuusuf area imka noqotay ee Somaliland iyo dawladda Soomaaliya ay hadeer iskaga dhinaca siyaasadda isku khilaafsan yihiin taasoo Soomaaliya caalamka dhamaantii ay warkaysa faragelin Somaliland waxa jirta ciidankan inaan loo samaysan Soomaaliya inaan loo samaysan Sool iyo Sanaagtoona ee uu yahay ciidankii qaranka Somaliland kaasoo u kala bixi doona ciidanka cirka ka hawlgala ka badda ka hawlgala iyo ka dhulka ka hawlgala tababarada ciidanku goob kaste oo ciidanka lagu tababaro way ka socdaan sababtu tahay isbedel ciidan baa yimid ma jirto ciidankii baraha bulshada soo gali jiray ee goob kaste iyo goor kastaba wax soo duubi jiray mamnuuc ayay ka tahay qofkii lagu qabto ee ka tirsan ciidanka qaranka ah ama mee goobaha uu joogo sawir kaga qaadan mid la ogol yahay mooyaane waxa uu mutaysan doonaa xarig waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa taliyaha ciidanka qaranka
General Nimcaan Yuusuf Gaaxnuug. Waayahay waa nin maanta hawsha uu ciidanka qaranka u hayo ama Somaliland u hayo aan looga warwarayn dad iyo dalba. waa nin khibrad u leh hoggaanka ciidanka, hoggaaminta ciidanka isaga iyo xubnaha hadeer la socdaaba. waa nin maskaxdiisu ay tahay 35 jir 40 jir inta u dhaxaysa oo shaqayn kara 60 sano ee soo socda. waxaan halkan uga mahad celinayaa isaga iyo ciidanka qaranka dhammaantiiba. waayahay wili halka aad nagala socotaan waa warbaahinta Chess Media. dhinaca commentiga ku reeba aragtidiina, like-tana saara, barnaamijka share gareey. ciidanka qaranka Somaliland maanta maalin uu ka rajo badan yahay ma jirto. maanta maalin uu ka awood badan yahay ma jirto. ugu yaraan ciidanka halkan lagu soo xiray tababarka oo dugsigii koowaad aan ahayn kuwa hore oo loogu soo xiri jiray dararweyne ay jirto. haddaba ciidanka halkan loogu soo xiray tababarka oo tiradiisa rasmiga aan halkan laga shaacin karin waxa uu u eeg yahay ciidan wada dhalinyaro ah 25 jir ilaa 35 inta u dhaxaysa. ciidan khibrad badan oo dheeraad la siiyay, ciidan lagu tababaray hubka casriga ah ee maanta iyo tiknoolajiyadaba, ciidan awood u leh meel kaste oo loo diro inay kaga warkeenaan. waayahay waxa kale oo dheeraad u ah tababarkan dheeraad ku ah ciidanka qaranka ilaalinta sirtiisa, deegaamadiisa iyo xogihiisa mid la ogol yahay mooyaane. waxa kale oo ciidankan khibrad dheeraad lagu siiyay in nidaamkiisa kala dambeynta ciidanka sababtu tahay haddii la hadlayo afhayeenba ciidanku leeyahay mid heer qarana iyo mid heer guutaba ah. waxaa jirta ciidanka qaranku inuu caafimaad gaar ah leeyahay. waxaa jirta ciidanka qaranku inuu isaga laftigiisu kala soocan yahay oo kalid erigaraafka iyo ka anti-erigaraafka iyo ka caafimaadka iyo ka commandusta iyo ka kala nooc nin waliba shaqadiisa gaarkaana inuu khibrad u yeesho ayaa lagu tababaray. waxa maanta ciidanka qaranka ku soo kordhay in uu wada noqdo ciidan technology-ga iyo qaabka loogu shaqayn kara ee ciidanimo wax laga baro. maanta adduunkan aynu ku noolahay gebigiisa oo dhan baa digital. waxa rajada ugu badan uu ka qabaa ciidan aan ka warwarayn maanta saadkooda iyo sahaydooda iyo mushaaraadkooda inta ay nool yihiin iyo hadday dhintaanba. waxa maanta aan uga mahad celinayaa taliyaha ciidanka qaranka Nimcaan Yuusuf Gaaxnuug oo ciyaaraha maanta taariikhda u galay way ka mid tahay maalmihii dhaweeyda khalkhalka ciidankii dugsiyada ku jiray la geliyay iyo sida uu talaabada nooca uu qaaday oo aan horaba loo arag 3 daqiiqo gudahood isbedelka kaga hortagay. waxa kale oo aan mar labaad u mahad celinayaa taliyaha Nimcaan Yuusuf Gaaxnuug. waxa kale oo aan u mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo rajada ugu badan ciidanka ku abuuray sida mushaar kordhinta oo kale, systemka ciidan ee hadeer ay ku dhaqmayaan, xog ilaalinta iyo direyskii oo isaga laftigiisa isbedel lagu sameeyay. waayahay barnaamijkan halkaas ku soo gabagabeynaa tan iyo kulanti dambe waxaan u leenahay maca salaama saw nabadgelyo. sheer gareey laakiin barnaamijka ha ilaawina aragtidiina inaad commentiga ku dhaaftaan.